iskusoos noqod wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan waa maalin kaloo cusub iyo cashar kaloo cusub hadduu ilaahay yiraahdo maanta waxaan baranaynaa ipronomi magacyaal muxuu yahay marka waa marka anagoon magaceena sheegin haddana tilmaan anaga na sheegaysa inaan bixinayno sifada marka anagana tilmaamaysa waxaan u kala qaadnaa marka wadar iyo waaxidaan u kala qaadnay oo macnaha jamac iyo mufrad luqadda carabiga ay noqonaysa laakiin waxaan isku dayaynaa afka Soomaaliga inaan ku raadino haddaadna naga runtiina hoos ayaad nagu soo qori kartaan qaybta kommentiyada jumladan way jirtaa ayada laftirkeeda waxaan u maleynayaa af Soomaali iyo Carabi waxay tahay kulay waa la Carabi waa la Soomaaliyeey yaanan ku dheeraanin iyo waani qaybtan hadda arkaysaan waa qaybta waaxidka ah ama mufradka ah qaybtan kalena waa qaybta wadarta ama jamaca ah waa u tagi doonaa yaani horboodin iyo aniga iga dabadhaha iyo aniga iyo tu adiga tu adiga tu adiga lui asaga isaga lahjadu way badan tahay saartaa waa trin kartaa lui asaga isaga lui isaga asaga labada lahjadu waa jirtaa ley ayada waa qof saddexaad oo naga maqan ley waa qof saddexaad oo naga maqan ley ayada qaybtan kale aan u imaanaynaa waa qaybtii wadarta ahayd ama jamaca ahayd noi inaga ama anaga noi inaga ama anaga lahjadaadi ku xiran tahay ha ku mashquulin voi adinka ama idinka labada waa lahjadii voi idinka waa markaasi waa jamac dadku way bateen waa hal qof iyo wixii ka badan ayay noqonaysaa marka loro ayaga waxaan filayaa in aad wada garateen casharkeena maanta wuxuu ku saabsanaa magacyaalka oo luqadda Talyaaniga lagu yiraahdo ipronomi dhawaqa iska sax ipronomi takalo hadda aan idin sheega waxay tahay dhageysiga waa inaad badsataan qaasatan dadka Talyaaniga ku nool waa inaad badsataan dhageysiga idaacadaha akhrinta buugaagta way idin saacidaysaa hala cabsanina waa inaad hadashaan kulama aad hadasho khaladkaaga markaa uu yaraanaya inta aan ku kulmi doono darsigan kiisa xiga waxaan idinkaga tagaynaa nabadiina nooli kulantay waxaase inaga xasuusina in aadna naga baqiilin sheerta like-ta waa mahadsantihiin ciao